daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka warbixinada iyo wareysyada runta news journal oo aad si joogto ah ugala socotaan Soomaaliya iyo Seattle Washington ee carigaasi Mareykanka. xoojinta iskaashatooyinka iyo horumarinta dhaqaalaha iyo dhiirigelinta maalgashiga dalka ayaa lagu lafaguray aqoon isweydaarsi ee soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyadoona ay ku kulmeen aqoon isweydaarsigaasi mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ee qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ganacsiga gaarka loo leeyahay iyadoo ujeedka ugu weyn ee kulankaasina uu ahaa xoojinta maamulka ee adaha ganacsiyada gaarka loo leeyahay waxaana kulankaasi aqoon isweydaarsiga ah maalgeliyay midowga Yurub. sidoo kale kulankaasi aqoon isweydaarsiga ah waxaa si wada jir ah ugu qayb qaatay wakiilo ka kala socday hay'adaha dawladda, rugta ganacsiga, iskaashatooyinka, ganacsatada yaryar, khubaro iyo cilmi baarayaal kala duwan. waxaana ugu horeyntii warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdicasiis Ibraahim Aadan isagoona sharaxaad ka bixiyay muhiimadda iyo ujeedooyinka looga hadlayay kulankaasi aqoon isweydaarsiga ah. workshop-kan lagu horumarinayo ganacsatada iyo cooperative-ka runtii ujeedo loogu talagalay waaye in hoos laga soo dhiso lisku habeeyo si loo gaaro runtii aan aloojan qaadno adduunka sida private dialogue uu u dhisan yahay. waxaa jiro sectorska waa ku mahadsan yihiin cooperative-ka siday isu soo wadeen in muddo ah ayagoo yacni fan haysanin dhexdooda isgarteen. waxaan marka ka shaqeynaynaa haddii ilaa yidhahdo cooperative-ka banaadir joogo in shaqadooda sii xoojiyaan. marka barnaamijkan intuu ka bilowday waxaan rabnaa inaan daadihino ilaa goboladii istiidiyadii dhammaantood la gaarsiiyo cooperative-kana isku xirnaado u shaqeyno sida caalamka. marka wasaaradda ganacsiga waxay idin diyaarinaysaa in siyaasadihii lagu hagi lahaa inaan diyaarino idinkana aad ka sidoo kale waxaa iyagana markooda warbaahinta la hadlay mas'uuliyiintii ka kala socday rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee qaar ka mid ah khubaradii aqoon isweydaarsigaasi lagu casuumay iyo mas'uuliyiinta ganacsatada iyagoona dhankooda ka hadlay muhiimadda iskaashiga ganacsiga faa'iidada uu leeyahay dalka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka. hadaan rabna annaga inaan kor u kicino kobca dhaqaalaha ma ka maarmaayo in wax la dhoofiyo. haddii wax la dhoofiyana waxaa khasab ah dadka aad u geynayso shuruudooda inaad waafajisid waa wax shay khasab ah. in arrimahaas marka khasabka markaad fiirisid rugta ganacsiga waxay qayb ka tahay guddiga dhoofinta maxaan ku dhahaa waxyaabaha Soomaaliya soo saarto. waxyaabaha aan ka hadalno waxa waaye shuruucdii ururka ugu weyn waa WTO. in qaabka shuruucdaas marka loo sameeyay anaga markaad fiirisid waxaan isku dayna waxa waaye in dawladda laftirkeeda aan dhinac kala noqon oo ah the PPD. haweenka ganacsatada waxay ku midaysan yihiin sektarada oo dhan. inta ganacsi dhaqaaqdo ayay haweenka leeyihiin. sidaasna haddana iskaashatana ma ahan oo qayb iskaashato ma loo isticmaalin. ayagiyo sector private oo qofkii wax dhoofinayay wasaaradda ganacsiga oo ka diiwaan gashan yahay canshuurta oo bixinayo rugta ganacsiga oo ka diiwaan gashan yahay gobolka banaadir oo ka diiwaan gashan yahay haddana caqabado badan ay iska jiraan laakiin waxaan rajaynaa 2022 wax alla wixii caqabad oo ganacsi oo hortaagan inay dhammaan doonto. saddex natiijo ayaan xooga saarayna. koobaad yahay sidii dialogue loo muujin lahaa, ka labaad yahay sidii looga wada shaqeyn lahaa xagga exportka iyo xagga muxuu ahaa suuqyada gobolka geeska Afrika sidii Soomaaliya u gaari lahayd. qaybta saddexaad waxa weeyaan sidii loo heli lahaa ganacsi ama ganacsato Soomaaliyeed oo u hoggaansan muxuu ahaa oo dhisan. ugu dambeyntii kulankaasi aqoon isweydaarsiga ah waxaa soo agaasintay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya wuxuuna ahaa kulan lagu xoojinayay wada shaqeynta hay'adaha dawliga ah iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay. Abdiraxmaan Atore, Nairobi. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan ku dhufa like dhammaan baraheena runta news journal ee YouTube, Facebook iyo Instagram. hana ilaabin inaad saaxiibadaada la wadaagto una share garayso wararka xaqiiqada ku dhisan.